rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay qofkii aan marka uu dhinto waxaa raacaya waxay tahay saddex shay: waa ehelkiisii, maalkiisii iyo camalkiisii. waxaa isweydiin mudan intii aan adduunyada aad joogtay maxaa camal wanaagsan aad qabatay. waxa kaliya aan lagu su'aal doonaa waxay tahay marka godkaas lagu geliyo maxaa camal wanaagsan soo shaqaystay. waxaa cajiib ah mar qor haddii aad dhimato wax bedelmaa waxay tahay magacaagii. waxa kaliya lagu yiri doono waxay tahay meydka. waxa kaliya lagu dhihi doono waxay tahay meydka la soo dhaqo, meydka lagu tukado, meydka hala soo dedejiyo. wacdi iwaano waxaa nagu filan waxay tahay qof walaalkeen oo dhintay inaan aragno, ama qof ehelkeen ha ahaado ama qof waalidkeen oo kale ah. wacdi iwaano lagu filan. walaalayaal, ugu dambeyn aakhirada aan hagaajino, nafaheen aan ku dadaalno si maalinta aakhiro aan jannadaasi aan ku kasban lahayn ama jannadaasi aan ku gaar lahayn. Assalaamu calaykum.